hogaamiyaha ruuxiga ee al-sunna wal-jamaaca sheekh shaakir cali xasan oo goordhaweed shir jaraa'id ku qabtay degmada dhuusamareeb ayaa sheegay in amniga guud ahaanba degmada dhuusamareeb ay ku wareejiyeen ciidamada dowladda soomaaliya. hadalka sheekh shaakir ayaa imaanaya kadib markii ciidamada dowladda soomaaliya ay xoog kula wareegeen xaruntii ay ka deganayeen degmada dhuusamareeb ee loo yaqaanay inji oo dagaal culus maalintii shalay uu ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo xogaga taabacsan hogaamiye diimeedka ee al-sunna wal-jamaaca. sheekh shaakir ayaa sheegay in markii ay arkeen xaaladda galmudug guud ahaanba ay garteen in ay u tanaasuleen sida uu hadalka u dhigay shacabka iyo bulshada reer galmudug, isagoo intaasi ku daray dowladda soomaaliyana looga fadhiyo wixii haddan ka dambeeya inay sugto nabadgelyada guud ahaanba deegaanada galmudug. warar subaxnimadii hore saakay soo baxay ayaa sheegaya in guud ahaanba madaxii al-sunna wal-jamaaca iyo saraakiishii al-sunna wal-jamaaca ay isku dhiibeen ciidamada dowladda soomaaliya, haatanna ammaankooda lagu sugayo degmada dhuusamareeb. sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa horey u sheegay inuu u yahay madaxweynaha dowladda goboleedka galmudug isagoo ku gacan seeray maamulka ay dowladdu aqoonsan tahay ee uu madaxweynuhu ka yahay axmed cabdi kaarshe qoorqoor. hase ahaatee waxaa haatan muuqata in arrimahaas oo dhan ay soo afjareen ciidamada dowladda soomaaliya ayna ka itaalroonaadeen gacan ku haynta qaybo ka mid ah magaalada dhuusamareeb. haddaba waxaa arrintaasi ka hadlayay hogaamiyaha ruuxiga ee al-sunna wal-jamaaca sheekh shaakir waxa uuna sheegay inuu u tanaasulay shacabka reer galmudug. waxaan halkan ka sheegaynaa oon ka caddaynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan in aan go'aansannay in aan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalinno. taas daraaddeed ayaan waxaan u samaynay tanaasul aan u tanaasulnay shacabkeenna. markii aan aragnay in dhib badanu soo wajahan yahay oo wixii dhacay weliba ka sii badan ayaan waxaan samaynay tanaasul aan u samaynay. marka bulshadeenna waa jecelnahay, waxaana uga soo shaqaynay xagga amniga, la dagaalanka argagixisada iyo dhan walbaba. waa hagaag. maamul goboleedka puntland ayaa isna ka hadlay arrinkii ka dhacay dhuusamareeb, waxa uuna ka yidhi arrinkani sidaas tahay haddana caqabadihii hore u jiray waxa uga daray waxa weeye maantay hogaanka joogaahi asagu wuxuuba la yimid inuu u dagaalamo in dalku uu noqdo dal meel dhex laga xukumo oo central government ama unitary wax la yiraahdo uu yeesho oo laga guuro hanaankii federaalka ahayd oo la soo baabi'iyo oo hay'adihii iyo dowladihii xubnaha ka ahaa ee soo dhismay meesha laga saaro. waxaana markhaanti ugu filan wixii Jubbaland ka dhacay oo aynu u wada joognay, waxaa markhaanti ugu filay wixii Galmudug ka dhacay oo xaaladeeda aynu ogeyn wixii ka taagnaa oo faragelinta lagu sameeyay intii la ekayd oo haatan tii ugu dambeysay xoog loo sheeganayay in hay'adihii meesha ka dhisnaa oo run ahaantii aan ka xunnahay oo muddada dheer argagixisada la dagaalamayay oo hubiyay in goboladaas ay noqdaan gobollo nabad ah oo dadkeedu nabad ku seexdaan, in loo adeegsado xoog iyo xabad oo waliba ciidankii loo tababaray inuu la diriro argagixisada ayaga lagu leenay, in ciidankii loo tababaray inuu argagixisada la diriro oo dalka ka saaro amnigii sugo oo iyadoo laga duulayo maxaa la yiraahdaa waxaan la yiraahdaa security architecture iyo dhaqaalihii beesha caalamka ku bixinaysay iyo tababaradii la sameynayay in ciidankii loo daabulo gado si maamulka Jubbaland lagula dagaalamo meesha looga saaro. run ahaantii waa nasiib darro taas ayaana keenaysa oo runtii wax yar oo laga soo qaatay in Puntland maanta tiraahdo war dalku waxbaa ka khaldanay aynu dib isugu soo noqono tashano dabadeedna markaas jihaad aynu qaadno. arrinta Galmudug saddex madaxweyne ayaa la doortay, qalalaasi siyaasadeed oo muddo soo jiitamay ayaa ka jiray. miyaan la oran karin dowladdu sidan ay xal u aragtay in lagu ururiyo bulshada reer Galmudug oo nidaam midaysan loogu sameeyo tan laftooda halkay qayb ka noqon kartaa? miyaan la oran karin maadaama ay hadda gacanta dowladda isu dhiibeen madaxda Ahlusunna wal-Jamaaca oo warbaahinta la soo istaagay? waa maadsantahay. haddii xoog wax lagu xalinayo Soomaali hore ugu xalin lahayd. rejiimkii siyaad barraa isku dayay dadkii caraysnaa ee jamhadii abuurmay inuu xoog ku muquniyo waa u suurtageli wey. waa la socotaa taas ayaa waxay kaliftay maanta dalkii inuu kala googo'o oo qaybo ka mid a ay sheeganayaan inay rabaan inay kaba baxaan midnimadii Soomaaliya. kuwii ka dambeeyey oo jamhadaha oo isku dayaya dalka inay dhinaca kale u dhigaan oo ay xoog ku muquniyaan oo xoog lagu qabsado baa shaqayn waaya. marka haddii xoog shaqaynayo xoog hore u shaqayn lahaa. waxaan kaloo rabaa inaan xusno marka laga hadlayo meelaha qaarkood inaynu wada ognahay maanta inaan aysan awooddu meel ku urursanayn. waxaan dareemaysaa dadku in ay ka daaleen colaadii oo danaynayaan dowladnimo iyo dib u heshiisiin
maantay dowladda dhexe ee federaalka mas-uuliyiinteeda waxyaalihii sida gaarka looga sugayay waxay ahayd oo mandatekooda ama maarata laga filayay dhammaystirka dastuurka oo waxyaalaha runtii aadka u taagnaa ahaa oo soo jiitamay waxaa ka mid ah dib u heshiisiin qaran in la qabto oo dalka dib u heshiisiin loo sameeyo oo waxyaalihii horey u dhacay oo xoog sheegashadan hadda aynu ka hadlayno horey u raadreebeen dalka Soomaaliya laga xaliyay markii taa la aadi lahaa dastuurkiina haddii meel la iska dhigay meeshii dib u heshiisiin iyo nabad la raadin lahaana hadda xabad hor laga bilaabay iyadoo la marayo sanadka 2020 runtii waa nasiib